أبي هويا وضللي لكن معاه كتير فلك قبل ده كل عشرة نكاس وقف سجى كل عشرة لفتيس العين كيسيبها كتير شاود السبا كتيرته ديجي السبا كتيره عبد الله فلك اللي والهي للدورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إفراحي تبقى داوني إفراحين الجنة الفضل ضاي وعشب تسوري وسبسكرايب يسار ما أنتوا حقد وفرح سنة ما شاء الله عاشر إني عدالة هالشيء نمك أرحم دراد ودلي أرحم دراد أوقف صدمات إن أول صوت تقديرك الحمد لله وإلى مهدس وأنك وفي عنا إبت أو لقاته إن شاء الله حرجينا نين كدنبو وقبر يركف صدق إنه عقاب تسمر دون أسجنه أنت أيضا كورسي أنت كدم بسبب إن شاء الله إن حق مردونا عاشر أبيه درين كذا وكنا كلا ساعة وعيتاي فبراير اللي وحلا قصاصي لبني نود البيرياشها وعبد الفتاح عبد الرحمن ورسله يا عبد الشكور محمد دير القصاص ما أنت عادي هذا أنا قصاصتي وأنا كفر حسن. ودي صدحات ما دام صدح لنا حكومة عيان دول كلمات اللي يفريها ما أدبوا لي ودي صدحات وأدبوا. الحمد لله والله والد كذا فرحسينهين مكستوي ليش والد كود ما أنت يمركسين لكن dhibka galeen aqaabtiis waa inay maraan si ay u joogsato kufsiga iyo dhibaatada iyo xadgudubka xaq darada loo geysanayo gabdhaha ilaa ku dhaarshay ninkan weyn wuxuu ku hadlaay fiiribal wallahi markaas sabciid qabta waani waa ugu imid meesha kulaha waxa ka kufsada waa ka tagay kan dilayaba ka sii daran oo sharaf ku ilaahay ka muusa cabsanay sharafti adduunyo ku cabsaday in uu ilaashado subhanallah bal dhageyso gurigiisaan ugu tagay dabadeed waxaan u tagay soo qolkiisa yar banaanka ku haysta Aisha ina xirxiranta muddo dood dheer kadib iyo cabsi fara badan aan dareemay wuxuu ugu qanciyay wax fudud oo dhamaanaya inay yihiin xawayaan shaydaan baan ii kasbay anigu kufsigan sameeyay goobtii faldambiyeedkan waan ka tagay Aisha oo noob waxyaabaha ugu qanciyay waxa kamid ah in uu sii dayn doono markay hawshu dhamaan wixii inta ka dambeeyana wixii aan wadana isa wax noqdaan la arki doono muddo saacada kadib goor gabalkii uu dhacay wuxuu ii sheegay in ay ka fursan weyday maadaama aniga iga daaweeyay in badan inay ka fursan weyday inuu sharaftiisa ilaaliyo inaan ka dhalinyaraysanahay haddii berri waxaa dhacaan in anigu aan kasoo kaban karo xagga da'da ama waxaa weeyaan xagga sharafta isagu wuxuu yiri waan kaa daaweynahay haddii arrintaas ay soo bixi lahayd dhibka ugu weyn iyo sharaf darrada weyn aan ugu dhici lahaa kufsiga gabadha dabadeed go'aanka weyn ee aan qaatay waa wuxuu yahay markii aad iga tagtay yiri inaan dilaa Aisha ama kaligay aada u murugsana wallahi maanta murug way soo xasuusiyeen caasheero sanad ka hor la dilay ayaa maanta dibna loo soo xasuusiyay ma sha Allah waan ku faraxsanahay in nimankaas la dilo markii aan xasuustanay wixii gabadhaas loo geystana wallahi waa ka calool xumaaday keeda qalbiga u qaboojiyo caasheer saqiira ahayd aan wax dambi lahayn ilaahay qalbigooda u qaboojiyo waalidkeeda ayadana ilaahay aan xariisan kasto ay dambi lahayn insha Allah ilaahayna dadkeena xaqaha tuso ilaahayna waxa ku dhagabdheena noo badbaadiyo insha Allah idinkan u duceeyo ku maxal cibra qaatana nimanka ilaahay ka dhigay kala kii gabriel kufsado oo ciqaabtaas ku dambeyn doonta adduunyo aakhirabo marka insha Allah mahadsantiin daawashada fiidiyoga fadlan hilmaamin YouTube channelkayga subscribe saartid waa ku mahadsantiin waa inoo fiidiyo wixii insha Allah